السلام عليكم أصحابتا كسر دوادا مركلة iyo barnaamijyadeena caafimaadka ee aan mar walba in kaga soo gudbino bogeenan bukaan deeq clinic YouTube-ka iyo Facebook oo isla bukaan deeq ah waxaana idin soo jeedinaya muuqaalkan anigoo ah Dr. Sharif Xidig hadii ilaahay idmo muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa bidaarta noocyadeeda waxa sababa iyo dawada ugu fudud ee qofku uu isticmaali karo si uu dib ugu helo timihiisii quruxdiisiina uu dib ugu soo noqon lahaa haddii aan ku bilowno bidaarta waxaan u kala qaadi doonaa nooc xanuun oo sababay iyo nooc heredity ah oo qofku dhaxal kaga heli karo waalidkii haddii aan ku bilowno kan xanuunadu ay sababeen waxa ugu ballaaran ee sababa waxa lagu magacaabo autoimmune ama difaaca qofka ee jirkiisa oo dib ugu noqda isla jirka isla markaana baabi'iya hair follicleska ama meelaha jirida u ah timaha oo timuhu ka soo beermaan ama ka soo abuurmaan oo burburta taasina ay sababteeda tahay immunity-giisa jirka oo dib ugu noqday isla markaana burburiyay sidoo kale waxa qayb ka qaata dawooyinka qaar oo qofku isticmaalo iyo waxyaabo la xiriira xanuuno kale oo haya sida fungalka iyo wax la xiriira sidoo kale xanuunada sababa bidaarta waxa qayb ka xanuuno magacooda loo soo gaabiyo SLE lagu magacaabo systemic lupus erythematosus kuwaas oo la xiriiro immunity-ga sidoo kalena keena bidaarta iyo xanuuno badan oo qaybaha kale ee jirka oo qofku ka dareemi karo haddii aan u imaano bidaarta nooceeda la xiriyo heredity-ga badanaa waxa lagu gartaa qofka xilliga da'da uu yahay waqtiga dambe da'diisa ayuu la kulmaa waalidkiis ayaana badanaa qaba markii la weydiiyo sidoo kale waxay kaga duwan tahay kuwa xanuunadu ay keeneen bidaartu si clear ah ayay u soo baxdaa oo tinta uga gurantaa meesha oo bidaartiisu waxay noqotaa mid dhalaalaysa halka kuwa cudurradu ay sababeena ay noqoto nooc qolof yeelata badana qaybta ay tintu ka maqan tahay sidaana qofku xataa marka qaar oo culays ka dareemo haddii aan u imaano dawada ugu fudud ee loo adeegsan karo bidaarta waxa lagu magacaabaa minoxidil waa dawo saliid ah oo la marin doono madaxa dawadan waxay kamid tahay dawooyinka lagu magacaabo vasodilatoreska sidoo kale waxa loo isticmaalaa dhiikarka oo iyo sidoo kale xididada yaryaraada jirka ayaa loo isticmaalaa dawadani waxa laga rabaa qofku markuu bilaabo inuu isticmaalo 6 bil ilaa iyo 12 bilood qiyaastii oo waqti dheer ayay wax ku soo saartaa qofku waa inuusan ka caajisin maalintiina oo 2 waqti oo isticmaalo dawadu waxay leedahay side effect oo qofku uu isku arki karo sida lagu magacaabo GIT disturbance oo ah dheefshiidka cilado la xiriira sida inuu kula laboodo sidoo kale wadna garaac saa'ida ayay keentaa dawada sidoo kale dadka marsadaahi hadii gacantooda oo aan gloves lahayn ama waxba aysan ka xigin saliida ay ku marsadaan mar walba saliida oo madaxa gacanta kula mariyaan waxa laga yaabaa in calaacasha ay timo ka soo baxaan sidoo kale saliidaasi hadii ay gaarto wajiga ama afka oo kale waxa suurtagal ah in halkaasi timo ka soo baxaan marka dadka isticmaala dawada saliida ah ee timaha lagu soo saaro minoxidilka rogaine waa lagu magacaabaa waa inay ka taxadiraan dawada markay isticmaalayaan oo aysan marin ama aysan ka taaban qaybaha kale ee jirka oo kaliya ay ku ekeeyaan meesha bidaartu ay ka soo wajahday oo timuhu ay ka maqan yihiin isla markaana ay doonayaan in timo ay ka soo baxaan sidoo kale dawada marka qofku isticmaalayo maadaama ay dawo tahay waa inuu kala tashto dhakhtar oo xanuunada qaar hadii uu qabo dawada rogainka ama minoxidilka ee saliida ah ma isticmaali karo waad mahadsantiin